مهد وعسان دتك waa madow iyaduna waa cagaar Suuriya su'aalaha goor joogtin calaashid Assalamu alaykum Sulub family kusoo dhawaada barnaamijkeena su'aalaha team Sulub official ay soo diyaariyeen bulshooyinka ku dhaqan magaalada Boorama qofkii ka jawaaba waxa uu heli doonaa abaalmarin ee daawasho wanaagsan walaal kusoo dhaw Sulub official walaal waan ku dhawa adoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Cabdiraxiin Shaafici Warsame Cabdiraxiinow saddex su'aalood baan ku weydiinayaa saddexdaas su'aalood haddaad laba ka mid ah ka jawaabtid waxaad nagu leedahay abaalmarin ay ku soo diyaariyeen team Sulub official diyaar ma u tahay inaad ka faa'iideysid kana jawaabtid su'aalahaas walaal diyaar baan u ahaa su'aasha koobaad waxay qoranaysaa magaalo cagaar ah magaaladu waa cagaar dhismaheeduna waa casaan dadkeeduna waa madow magaaladaas baad sheegaysaa waa qarax su'aashaad waad ka jawaabtay su'aasha labaad waxay tahay suurad ka mid ah suuradaha quraanka suuradaas waxa ku jira dhammaan aayadaheeda laftiga Allah suuradaas baad noo sheegaysaa suuradaha ku soo celi waxa tiri suurad ka mid ah suuradaha quraanka dhammaan aayadaha suuradaas waxa ku jira laftiga Allah suuradaas baad noo sheegaysaa waa qul wallahu amalina may wala weydi su'aasha saddexaad baan u gelaynaa waxaad sheegaysaa xubin ka mid ah xubnaha bini'aadanka xubintaas mar kastoo ay wasakhowdo way caddaataa xubintaasaad noo sheegaysaa markay wasakhowdo caddaataa sanka mooye xubin markay wasakhowdo caddaataa xubin ka mid ah xubnaha bini'aadanka mar kastoo ay wasakhowdo way caddaataa waa beerka may maaha waxa wasakhowdo caddaana waxaa waaye waad garan weyday saddexdii su'aalood mid ka mid ah waad garataan filaya mid ka mid aad garatay walaal ku soo dhawo Sulub official ku dhawaay adoo magacaaga ku bilaabay Cabdiraxmaan walaal laba su'aalood baan ku weydiinaya labadaas su'aalood haddii aad ka jawaabtid waxaad helaysaa abaalmarin ay ku soo diyaariyeen team Sulub official diyaar ma u tahay labadaas su'aalood inaad ka jawaabtid welcome su'aasha koowaad waxaad ku oranaysaa suurad ka mid ah suuradaha quraanka dhammaan suurada aayadaheeda waxa ku wada jira laftiga Allah baa ku jira suuradaas noo sheegaysaa magaceeda suuradaas ku dayo waa suuratu maida may wala weyday ma isku daysaa mar labaad waxaan isku dayayaa suuratu tooba waa la weyday mar labaad su'aasha labaad waxay ka oranaysaa shay marka wax lagu daro wuu yaraadaa marka wax lagu daro wuu yaraadaa marka wax laga jarana wuu bataa su'aasha ku sii marka wax lagu daro shay marka wax lagu daro wuu yaraadaa marka wax laga jarana wuu bataa I don't ma garanayo waad mahadsantahay walaal Sulub official waan dhawahay walaal mahadsan adoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Maxamed Ciise walaal maxamed ciise saddex su'aalood baan ku weydiinayaa saddexda su'aalood haddii aad laba ka mid ah aad garatid waxaad nagu leedahay abaalmarin ay soo diyaariyeen team Sulub official diyaar ma u tahay inaad su'aalaha aad ka faa'iideysatid kana jawaabtid diyaar baan su'aasha koowaad waxay ku oranaysaa suurad ka mid ah suuradaha quraanka oo dhammaan aayadaheeda ay ku jiraan laftiga Allah suuradaas baad noo sheegaysaa wallah may waa la weyday al-baqara may waa la weyday su'aashaas waad garan weyday su'aasha labaad baan u gudagali doonaa su'aasha labaad waxay ku oranaysaa magaalo cagaar ah dhismaheeduna casaan yahay dadkeeduna uu madow yahay magaaladaas baad sheegaysaa xatii magaalo cagaar ah magaaladu waa cagaar dadkeeduna waa madow dhismaheeduna waa casaan Afrika may waa la weyday garan weytaan su'aasha labaadna waa la weyday su'aasha saddexaad waxay ku oranaysaa xubin ka mid ah xubnaha bini'aadanka xubintaasoo mar kastoo ay wasakhowdo caddaata xubintaas noo sheegaysaa qalbiga may maaha qalbiga ma naqaanaa may qalbiga ma hawla garan weysaa waad la weyday waad mahadsantahay Sulub official waan dhawahay walaal magacaygu waa Cabdicasiis Sheekh Maxamed Sheekh Muuse
cabdicasiisow saddex su-aalood baan ku weydiinaynaa saddexdaas su-aalood haddii aad ka jawaabtid laba ka mid ah waxaad nagu leedahay abaalmarin ay kuu soo diyaariyeen team sulub official diyaar ma u tahay inaan ku weydiiyo diyaar baan ahay asha koowaad waxaa weeye waxaad sheegaysaa magaalo dhismaheedu magaaladu waa cagaar dhismaheeduna waa casaan dadkeeduna waa madow magaaladaasaad sheegaysaa magaalada haddaan isku dayo waxaad tiri dhismaheedu waa casaan dadkeedu waa madow iyaduna waa cagaar suuriya may isku day labaad waxay ka odhanaysaa suurad ka mid a suuradaha qur-aanka oo dhammaan aayadaheeda ay ku wada jiraan lafdiga allah waa suuratu arraxmaan may qad samic waad garatay su-aal baan ku hayaa su-aasha saddexaad waxay ka odhanaysaa xubin ka mid a xubnaha bini'aadanka oo mar kastoo ay wasakhoodo caddaana ilka may xubin kastoo xubnaha jidhka ka mid ah xubin ka mid ah xubnaha jidhka bini'aadanka oo mar kastoo ay wasakhoodo caddaata markay wasakhowdo caddaanaysaa mar kasta oo ay wasakhoodo way caddaata markay wasakhowdo ayaa caddaanaysaa waa timaha may ma garan shariif xuseen baa la yidhi shariifow saddex su-aalood baan ku weydiinayaa saddexda su-aalood haddii aad ka jawaabtid waxaad kasbanaysaa abaalmarin ay ku soo diyaariyaan team sulub official diyaar ma u tahay inaad su-aalaha ka jawaabtid diyaar baan u ahay waa weydiin kartaa walaal su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa magaaladu waa cagaar dhismaheeduna waa casaan dadkeeduna waa madow magaaladaas baad sheegaysaa haddaan isku dayo su-aashaas saaxiib malaha waa halxiraale weeye marka waa qaraha su-aashaa waad ka jawaabtay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa shay marka wax lagu daro wuu yaraadaa marka wax laga jarana wuu bataa waa godka walaal waa gacsan yahay su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa suurad ka mid a suuradaha qur-aanka oo dhammaan aayadaheeda waxaa ku wada jira lafdiga allah suuraddaas baad noo sheegaysaa suurat almujaadala ama qad samic qof walba suu yaqaan dhammaan su-aalaha ka wada jawaabtin alaashid ka qaybqaatahan wuxuu noqday ka qaybqaabtii ugu horreeyey ee ka jawaaba dhammaan su-aalihii aan bulshooyinta ku dhaqan magaalada boorama aan la dhex marayay hadeertana waxaan siinayaa abaalmarintii ay u soo diyaariyeen team sulub official walaal dareenkaaga waa ku faraxsanahay walaal team sulub officialna maxaad leedahay hore u socdaan leeyahay ma garat waa dhiirigelinayaa dee waa barnaamij wanaagsan maarag aad baad umahadsantay hadeertana waxaan ku siin doonaa abaalmarintii aad kasbatay iminkana waxaan ku wareejiyey abaalmarintii team sulub official ay u soo diyaariyeen ka qayb qaatahan waxaan leenahay guulaysaan leenahay